بسم الله الرحمن الرحيم. wax ka barano weydiintan what is product life cycle oo loo soo gaabiyo PLC. Product life cycle waxaan ku qeexi karnaa in ay tahay marxaladaha kala duwan oo ay badeecadaha ama alaabaha soo maraan laga soo bilaabo marka la sameeyo alaabta ilaa ay noqonayso mid aanan loo baahnayn ama baahideeda ay yaraato. Si guudna waxaa loo qaybiyaa 4 marxaladood waxaan uga hadlaynaa mid. Introduction waa heerka koowaad oo ay badeecada soo marto, waana marka ay badeecada cusub tahay, waana marxalad ay wacyiga iyo aqbalaadda badeecadan ee macaamiishu ay korayso. Haddaba shirkadaha waxa ay maalgelin xoogan ku bixiyaan cilmi baarista suuqa, xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadan cusub. Waxaana intaa loo yeelayaa in sare loo qaado wacyiga macaamiisha ee badeecadan iyo in la abuuro baahi loo qabo badeecadan si ay u gataan. Tusaale, markii la soo saarayay gawaaridan ku shaqeysa tamarta korontada, shirkado ay ugu horeyso Tesla ayaa maalgelin xoogan ku bixiyay inay xayeysiiyaan oo ay suuq u abuuraan gaariyaashan oo kale, waxa ayna soo jiiteen macaamiil. 2 waa heerka loo yaqaano growth, waana marxalad suuqa badeecadan uu kobcayo, iibka iyo wacyiga macaamiishana waa heer sare. Badeecadana waxa ay noqotaa mid shaac baxday, shirkadaha waxa ay xoogga saaraan sidii ay u horumarin lahaayeen badeecadan iyo in la ballaariyo macaamiisha gadanaysa badeecadaas iyo welibana in la kordhiyo baaxadda suuqa lagu gadayo intaba. Tusaale, gawaarida ku shaqeysa tamarta hadda si fiican ayay u shaac baxeen, qiimahoodana waxa uu noqday mid la awoodo marka lala barbar dhigo heerkii koowaad ee introduction-ka. Sidoo kale suuqana waxaa soo galay shirkado kala duwan oo raba inay ka mid noqdaan soo saarayaasha gawaarida ku shaqeysa tamarta. Midaasna waxa ay dhalinaysaa in tartan bilowdo oo dan ugu jirta macaamiisha. 3 maturity waana heerka ay alaabta noqonayso qaangaar ama inay gaarto marxaladii ugu sareysay. Midaasna waxa ay keentaa in xaddiga iibka hoos u dhaco. Heerka tartanka shirkadaha waxa uu gaaraa heerkii ugu sareeyay. Haddaba markii la joogo marxaladan, shirkadaha waxa ay xoogga saaraan inay ilaashadaan saamigooda suuqa iyo inay sare u qaadaan tirada macaamiisha daacadda u ah iyo wixii laalmaala. Tusaale, badeecada smartphoneska waxa ay ku jirtaa marxaladii qaangaarka. Shirkadaha mar waliba waxa ay soo saaraan moodelo cusub, waxa ay ku daraan astaamo cusub, maadaama shirkadaha noocyadan soo saaray ay iska eg dhow yihiin. Waxa ay shirkadaha ku tartamaan qiimaha la siinayo mobilka si ay u ilaashadaan saamigooda suuqa ay ku leeyihiin. 4 waa marxaladda loo yaqaano decline, waana xaalad ay badeecada soo wajahdo sudhac, waxaana keenta isbeddel ku imaada rabitaanka macaamiisha, tiknoolajiyadii oo isbedeshay, ama inay soo ifbaxdo badeecad ka tayo fiican kuwa hadda jira. Marka lagu jiro marxaladan, waxaa hoos u dhaca iibka shirkadaha iyo faa'iidada ay ka samayn jireen. Maamulka shirkadahana waxaa laga rabaa inay qaataan go'aamo la xiriira badeecadan ku jirta xaaladda hoos u dhaca. Ma dib u cusboonaysiin ayaa loo sameynayaa, ma la iska joojinayaa in dib loo soo saaro, mise waa la yareynayaa tirada laga soo saarayo iyo wixii la halmaala. Tusaale, waxaan dhihi karnaa badeecada ku jirta marxaladda hoos u dhaca waxaa ka mid ah telefoonka landline-ka oo aad sawirkiisa ka aragtaan qaybta sare ee dhinaca midigta. Marxaladda hoos u dhacana waxay imaatay markii loo batay isticmaalka mobilka. Muddada 4 xaaladood oo ay soo maraan badeecadaha waxaa xadidaya ama jaangoynaya nooca badeecada, suuqa lagu gadayo, xaaladda suuqa iyo wixii la halmaala. Ogowna shirkadaha si ay sare ugu qaadaan muddada ama marxaladaha kala duwan oo ay badeecada marto, waxa ay dhaqan gelin karaan istaraatiijiyooyin kala duwan si looga fogaado inay badeecada soo gaarto marxaladda u dambeysa oo ah hoos u dhaca. Xog dheeraada oo ku saabsan market share iyo market growth, fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor uga soo hadalnay. Mahadsanidin, waa inoo markale haddii Rabbi idmo.